kormeerkun oo anjeedis haytay sidii la kurgali lahay xaaladda caafimaad iyo xaaladda adeegyada bulshada magaalada Baraawe yawayba horkahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Australia heliisyo ku dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo weheliyeen maamulka degmada goobayo deeran wayba ku mid haytay isbitaalka guud ee magaalada Baraawe iyo isbitaalada Barayfadke oo markaasay bulshada shirkadisan lanka adeego sidaas oo kale goobo la booqday wayba ku mid hayay goobo kalluumaysiga iyo goobo ganacsiga magaalada Baraawe intii oo ku jiraan kormeerkun iyo ku soo biyayaan mas'uuliyiintu isbitaalada gaarka leey ee magaalada yawayba warbixin lagu dhageysiday mas'uuliyiinta isbitaalka iyo dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha isbitaaladaasay waana qaar ku mid ah iyo isbitaalada Barayfadke leey iyo warbixin ku dhiibayaan xaaladda caafimaadka shacabka iyo aan gudayaan ثم أنا عاوز كل أيضا مدورينا بدي أستحق كيس لا أفركيس وبالما كلكم بكيت طعم مع ذكر كذا إيش أمبراي من هالكير وين مفرنا أمبراي من هالكير أتوقفكم بكيت ده بوكينا والمي كسو يستاجين والمي يبدأ كسو هالسوا هذه كيس وروح حنك نوعا تادي كسو ده ما كتب ما ديك الطاف كان ديك كسو ده أنت عمل برايم من كل كان استاك لوك دي ما ديك فحافظ بنت هنا حل سوي مكسر في سبناك أو بعضنا سوق هذا سو قصبين وقت لكن قفت عن حاجة لكن ما فهم برايمر هتكير وعندنا أنت أنا كويلنا كامية عفوز بنت عياد ما تلدي الكراسو ويعبها تبانك هكي كاسو كاسة بتنقل باحث الدولنا حتى ممكن نصاب بقول إني أد ويحباهم بدن الله أنا أقدر إني أكسجين كي ويحمل كاسة مفاجئ أنا الله كاني ويحباهم بس كتير كل مرة باهم دول لكن أنت هاد برايمر هتكير كهوة يس وإمرجنسي هتأخذ فريو هذا أول كما بعد عامل جرب إمرجنسي أهله واحد بعامله كل فريو مرة جرتي باهي زاد قبني هذا الحمد لله حوالي دراسة صبري في عنا هلا شربوين ونسسرق المها هالكيكا ونفعوا ديار واضح لنا في البوين كعبدها إمرجنسي أنتوا مهمسة المها وكلامك يخوف قدام الماضي وحيالها لو باهي عبدها إمرجنسي باهينا واسكت تستعيد الدعوة واحد مود دور في بقول بقول لكن أنت هذا مهمسة إنه يعلن intaas kureed way baalan gudubay isbitaalka guud ee magaalada Baraawe meelo su'aalo kala kulmay shaqaalaha iyo dhaqaatiirta isbitaalka guud ee magaalada Baraawe yoona qeyb la booqday way baa ku warbiyeen qaababka iyo markaasi aan shaqeeyaan shaqaalaha center weeyaan qaybtan waxa weeyaan SCda ilmaha communication ka qaba ama cudurrada ka cabanaya sida kuwa bronchitis ka qaba kuwa measles ka qaba شمبيوت كقبة وحيابها صورن عمر نفقدرها هس أو complication قبة لو طبيبة وحالس يا بلام نيتك وحالس يا عنها ولا من نوعه F75 إيو F100 وحالس يا داوينك مركي أمكن لو طبيب عنق ونقده عنق أبتاد أو عنكرة وحلو وريتيا قيبت OTB ده أو MCH لقصينا بلام نيت أسبوعي هالمال 4 كستان بحنا أنا قصيد عادي جا أسبوعي هالمال بلام نيت كاس بحنا وحنقول بحنا عنق الميزان كيسان بحنا عنق كست الميزان كيسان وحلي قياس وقارة intaas kureed yawayba wasiirka iyo maamulka magaalada Baraawe wayba kulan la waaldeena shaqaalaha isbitaalka guud ee magaalada Baraawe aan ka horeyn yawayba meel ku hadalay mas'uuliyiinta isbitaalka iyo ku warbi xaaladda iyo baahiyaha gaarka ah ee isbitaalka qaba الله وبركاته بعد السلام مدن وزير kusoo dhawow isbitaalka guud ee degmada Baraawe isbitaalka runtii isbitaal dawladeed waaye isbitaal ka ugu weyn degmada Baraawe waaye kulay arrimihiisa waa u jeedaa isbitaal ahaan waana shaqeeyaa laakiin baahi fara badan waa ka jirta baahiyaha hadaan ku bilaawno waxa kamid ah daawo la'aan waxa ku xiga qalab la'aan sida hadda Faris Aid ma gal hadii aan gal lahayn armaajadihiisa wuxuu u baahan yahay gacan in lagu qabto khaas ahaan wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed waxaan ka codsanaynaa isbitaalka inay ka war hayso ay imaado xaaladiisa ogaato isbitaalka waxa waaye anaga waxaan ku wadnaa iska wax u qabso inta ka soo celi jaalidaha la hadla magaalada runtii isbitaalka dadweynaha magaalada isbitaalka hadda ka hor waa dayactireen way cadeeyeen baahi badan ka jirta isbitaalkan degmada Baraawe ee tahay baahida xagga daawada waqti badan maamul ahaan aan la soconay maxaan ka codsanaynaa wasiirkeena arrimaha gudaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hadda noo yimid waxaan ka codsanaynaa inuu baahida hadda isbitaalkeena oo qaba ujeedad xagga daawooyinka inay u yihiin
xagga hataa qaliinka daawo ee muxuu ahay qalabka taa mar walba oo naqa karo qalab oo waa laabi karaa haddaba taa qalabkan say inta badan waxaa ka tijaariyada keentay waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka koonfurta Soomaaliya iyo koonfurta galbeed waxaan ka codsanaynaa in isbitaalka dhowr mar ayaan baaq u jeedinay waxaan baaq ku yimid wasiirkeena ayaa yimid madaxweynaha hadda kor khayr Allah siiyo madaxweyne Cabdicasiis Laftigaraan wuxuu noo keenay hal diyaarad oo daawo ayuu noo keenay khayr Allah siiyo waxaan rabnaa hadda wasiirkeena uu yimid waxaan rabnaa wasiir waxaan ka codsanaynaa inaan baahideena isbitaalka u qabo inaan noo gudbisid inaad sida wani hadda maanta ugu naxday isbitaalka aad ugu soo qayb gashay waa ku mahadsantahay si weyn ayaan ku soo dhaweynaa dhinaca kale wayba meelo ku hadalay gudoomiyaha magaalada Baraawe Umar Sheekh Abdi Shafaana tiimka uu hogaaminayo oo wasiirka iyo bahda saxaafadda iyo bahda caafimaadka dhammaan guddiga shaqaalaha iyo dhammaan أولاً waxaa idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaan wasiir si aad ka warhayso isbitaalkan aad iyo aad waa isbitaal dawladeed waa booqashadii maanta ugu horeeyay ku imaadeen filaa dhibaato badanna marxalado kala duwan isbitaalka way soo martay maanta waxaan isleenahay wajiga ugu fiican maanta inay tahayaan maanaan filaa taasna maana waxaa lagu gaaray dadaal iyo juhdi badan lagu bixiyay saas ay tahay isbitaalkan wax badan oo hadda ka dhiman oo wili baahiyo maana loo qabaa jirto hay'adahan hadda isbitaalka ku jirto waa saddex hay'ado sida kolka Shabeellaha markaan runtii kala hadlo taasna waxay keentay dadaal xumo iyo wasaaradii maana indhaha ku soo heynay sababta isbitaalka isbitaal private maana maahan waa isbitaal dawladeed dawladda ayada looga fadhiyaa in isbitaalka wax ka caawiso wax badan ay ka caawiso marka insha Allah ta'ala markaad noqotid waxaan ka rajaynaynaa iyo markaad oo maana wasaaradihii oo maana qaybahooda kala duwan aad la kulantid in isbitaalkan baahiyada ka jirto dhabta in loogu hadlo adna indhahaaga ku arkaysaa waana mahadsantiin assalaamu calaykum aka dambeeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose ee Liisiyowga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maaxi Maxamed Ciise yaa usuuna sheegay inuu booqashiis wakiilan ku ay wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya waana aan gudbi doona wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya baahiyaha gaarka ee isbitaalka maanta waxaan joognaa caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed degmada Baraawe isbitaalka weyn oo degmada Baraawe aan joognaa runtii waxaa ka muuqato sida hadda warbixinta ay noogu sheegeen dhaqaatiirtii oo degmada isbitaalka degmada warbixinta ay noo sheegeen waxay ka mid tahay yani warbixin aruurina annaga aan u nimid runtii isbitaalkan waxaan rabaa inaan anoo ka faa'iideysanayo anoo ka wakiil ah dhammaan wasaaradaha iyo madaxweynaha waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadan qaaliga ah oo aan ugu faa'iideysanayo waxa aan indhahayga aan ku arkay runtii waxaan rabaa inaan u diro baaq wasaaradda caafimaadka shaqada waa la kala leeyahay isbitaalkan waxaa ku howlan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan rabaa anoo fursadeeda ka faa'iideysanayo inaan u diro baaqaas oo ah runtii horta wasaaradda way dadaashay waxyaabo badan way qabatay laakiin sida hadda warbixinta ay noogu siiyeen shaqaalaha isbitaalka oo ah dhanka daawada runtii inay aad iyo aad aga liitaan oo wax walbana si la rabay aysan aheenin marka dadaal badan waa muujisay wasaaradda caafimaadka waxaan rabnaa haddana inay si la wajibaarto dadaalka hadda ay ka wado hadda waxaa noola sheegay annagoo waraysi dheer la yeelanay tiimanka oo shaqaalaha caafimaadka waraysigaasoo ahaa in macnaha hay-adda Newway oo isbitaalka runtii gacanta ku hayso dhanka talaalkana ay ku hayso Ayub NGO marka kulli annagu ma sii faaqodeyno wasaaradda caafimaadka shaqadaas u taala runtii annaga inaan gaarsiinayno leenahay si kastaba haato muddooyinkii aan dambeeyay magaalada Baraawe way baaqna kaaytay tomarkaasi ha ku qabsadaasi dhiniya caafimaadka walbarashada iyo ganacsiga iyo muddooyinkunba magaalada Baraawe hadeerayay mas'uuliyiin shirkadiisa ku dayartay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya taas ay dhis badan aan soo biyaasay bulshada magaalada Baraawe Abshir Maxamed Nuur Mandela warbaahinta Koonfur Galbeed Baraawe